marka koowaad ilaahay baan u mahadcelinaynaa nagu kulmiyey xafladan qiimaha badan leh. marka labaad waxaan salaan iyo hambalyo u soo jeedinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo uu ka mid yahay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda, xildhibaanada labada gole, ganacsatada, gudoomiyaha dahabshiil group Somali Central, South Central, iyo ganacsatada dhammaantood, dhallinyarada iyo gabdhaha iyo bahda warbaahinta dhammaantiin waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanka bacdi aadaan ugu faraxsanahay runtii xafladan aad u qiimaha badan leh inaan ka soo qayb galo, mana ahan markii koowaad oo aan ka soo qayb galo. waxaan ka mid ahaa dadkii sanadkii la soo dhaafay hadiyadihii la guddoonsiinayay bulshadii ku guulaysatay oo nasiibka u yeelatay hadiyadahaas dadkii guddoonsiiyey oo xafladihii lagu guddoonsiinaya goobjoogga ka ahaa baan ka mid ahay. runtii waxaan aad u aqoonsanahay dadkii anugu 3 baabuur oo shirkaddu ay bixisay 2 ka mid ah goobjoog baan u ahaa. qaar baa waxaa laga keenay gobol aad u fog, beledweyne laga keenay gobadha ku guulaysatay baabuurta mid ka mid ah. ma u malaynaa inay weligeed ku riyootay baabuurka noocaas oo kale ah inay hadiyad u heli doonto, laakiin nasiibkeeda u saamaxay iyo fakarka saliimka oo ay qaateen dahabshiil group inay bulshada u bandhigaan, ayadana nasiibkeeda ilaahay ku soo aadiyey. marka waxaan leenahay runtii aad iyo aad ay u mudan yihiin xafladaha ay qabtaan oo sidaan oo kale ah in laga soo qayb galo. sidaad ogtihiinba shirkadaha ganacsiga ee waaweyn waa dhiirigeliyaha bulshada, waa horseedaha horumarka. ganacsatadu waxay dhiirigeliyaan bulshada dhallinyarada ah aad wax u baratay oo jaamacadaha ka soo baxay. waxay wax u barteen inay wixii ay bartaan shaqo ku helayaan. waxaan arkay aniga hadda dhallinyarada qaar ka mid ii sheegeen inay imtixaan cid waliba meeshii iyadoo go'aankeedu ay isleedahay waad ka qaybgeli kartaa ama wixii ay soo baratay ayadoon cidna recommendation ka raadsan inay shirkadaha uga qayb galaan. shirkadaha ganacsiga waaweyn ee dahabshiil ay ka mid tahay runtii waa ugu hambalyeynaya. waxaan leenahay dhallinyaradu haddaysan ogaan lahayn qaybtii ka horraysay inay shaqo heleen xoogaa niyadjab baa ku dhici lahaa. laakiin bangiyaduna waxay dhiirigeliyaan dadka fikradaha fiican la yimaada, shirkaduhuna waxay qaataan dadka aqoontooda ka run sheegay. haddana waad maqlayseen arrintii sheekh aadan uu sheegahayay oo uu yidhi waxaan dhiirigelinaynaa cid allaale ciddii ku guulaysata waxbarashadeeda oo waxaan siinaynaa scholarship aan siinaynaa. marka waxaan leenahay runtii aad iyo aad fursad aad u fiican weeye. ma u malaynahayo inta hadda annaga ganacsi ahaan aan goobjoog ka ahayn oo ganacsatadu ay ku celiyeen bulshadeeda oo ay ka mid ahayd dahabshiil group. haddii abaara dhacaan iyo haddii fatahada dhacaan iyo haddii masiibooyin kala dhacaan mar kasta waxay ugu horeeyaan tiirarka oo ay ku taagan tahay ganacsatada waaweyn oo markii la yidhaahdo waxa la bixiyo ayagu ay horseed u noqdaan. marka shirkadaha waaweynna aadaan ugu hambalyeynayaa. shirkadda dahabshiil groupna maalin walba horumarkay soo siyaadinaysa. caawa waxaa u yaalla guri $140,000 qofkii ku guulaysta nasiibkiisu intuu $1 ku shubto ilaahay ku aadiyo.